Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rajeynaa inaa maqlaysaan wax yaraa soo daahay xilligaa idinla ballamay iska raalli ahaada howl adduun. Barnaamijka waa barnaamijka labaad oo muuqaal ah, qoraallo fara badan waa soo geliyaa laakiin muuqaala oon idinkala hadlaayo. Barnaamijkii ramadaanta aan ugu talagalnay oo gabdhaha raba inay miisaanka iska dhimaan. Arrintaas oo ah waxaa wax badan aniga nafteyda aan ku soo dadaalay aan idinla wadaagi doono insha allah sawirada iyo muuqaalka kos wax lagu degdegi kara maaha oo isma qaawin karo sidaas la ajlageed laakiin waan jecelahay inaan idinla wadaago hadba inta aan luusgareey iyo struggle-kayga dhibaatada u soo maray inaan miisaanka iska dhimo. Marka war la qabaa xiisa male intii hore ula socoto waa ula socotay. Waxaan rabaa inaan hadda meesha ka bilaabo. Caasha soo dhawaad baay baryahanku ma arkin. Salaam calaykum salaam walaashay. Cabdifataax waa ujeedaa. Cabdifataax Cabdullaahi salaamullaahi walaalkay. Dhammaan 191 ma tihiin maasha allah 197. Okay. Ya xoogaa ramadaankii waxaa xoogaa wajiga ka muuqda. Okay waaye ilaahay hanoo kuwii laga ajiibo hanaga dhigo cibaadadeena. Waxaan rabaa maanta inaan si kooban idin kala hadlo fahamka cuntada ama sirta cuntada. Sirta fahamka cuntada waxa waaye waxaa la dhahaa jir caafimaad qaba, jir caafimaad leh ayaa maskax caafimaad leh ku jirta. waa halku dhigyada isboortiga loo isticmaalayo muddo aad iyo aad u fog. waxaana laga wadaa jirka caafimaadka qaba ayaa maskax caafimaad leh ku jirta. waxa loola jeeda waxa waaye miss you too caasha. waxa loola jeeda saafi amiir waa ku salaamaa saafi baayo. waxa loola jeeda waxa waaye marka aad jirkaaga oo caafimaad leeyahay caafimaad qabo ayaad maskaxiyana caafimaad qabtaa. haddii oo jir ahaan aadan qof diyaarsan ahayn oo wax un maaragtay si kaa yihiin macnaha maskaxdana caafimaad fiican ma helaysaa laga wadaa. marka waa isku xiran yihiin weliba hadda oo la joogo duni dadku dhaqdhaqaaqooda aanu badnayn oo dadka dhan fadhi iyo koo fadhiya le ee adeeganayaan oo xataa caruurta maanta dhan ee game iyo waxaas ay ku jiraan. ciise america iyo dawaa ku salaam game iyo waxaas ku jiraan oo waxaa physical activitieski wixii dhaqdhaqaaqa jirka sameynay uu aad u hooseeyo. xasan waa salaamantaa walaalkay sagal ismaaciil soo dhawow. waxaa dhacaysa in dadki ay kulligood miisaan aanu jirkooduna u baahnayn caafimaadna ugu jirin inuu jirkooda koro. ta kale teknolojiyadda annaga dadkeena waaweyn xataa waxayna baday inaan maanta dhan fadhino maanta dhan facebook lagu jiro maanta dhan maxayto waxa lagu jiro. xataa haddaad shaqaynaysid hadda example anu qof kale kama hadli karo anaa iska hadli kara. shaqadayda oo dhan waa fadhi. maraa gurigayga ka shaqaysanaya maraa banaanka u baxayo ma ahane haddaa xafiis tagana xafiisyada banaanka aan ku leehaa inkastoona weli ku noqon haddaan tagana waa fadhiyaa uun. haddii aan gurigayga officeka gurigayga iigu yaala aan joogana waa uun fadhiyaa. markastaaba waan fadhiyaa. marka macnaheedu waxa weeyaan ma jiro dhaqdhaqaaq jireed ma jiro. murquhu iyo jirka ma shaqaynayaan. saas la ajligeed dhinacaas kuma kontarooli karno hadda xaaladaha jira iyo sida nolosheenu tahay daraaddeed kuma kontarooli karno inaan miisaankeena kontaroolno oo aan ka dhigno miisaan caafimaad leh. laakiin waxaan ku kontarooli karnaa cunada aan anaga cunayno waxa jadiinkaas aan marinayno in aan xukunno oo kontaroolno. sirta cuntada marka waxa waaye oo horta dadka aan weli fahmin aan rabaa inaan fahamsiiyo. haddaadan cunin waxa jirkaaga u baahan yahay wax ka badan ma cayilist. jirkaaga wuxuu u baahan yahay cayilka dhan wuxuu ku imaadaa waxaan cunaynaa cunto aan dheelitirayn isla markaana wixii jirkeenu u baahan yahay wax ka badanaa cunaynaa. markaan cunno waxaa dhacaysa jirku wuxuu qaadanayaa inta u baahnay bas. wixii aad cunto isku daldasha
inta kale jirka xayr ayay noqonayaan, jirkaagayna baaqi ku ahaanayaan. waa un intaas fahamka dhan ugu muhiimsan intaas waa. waxaa cunaynaa wax ka badan waxaa u baahannahay. markaan cunno wax ka badan waxaa u baahannahay, jirka wuxuu qaadanaa inta uu rabo. inta soo hartay xayr iyo cadiin lakabya ah oo fadhiyay noqonee, jirka dhexdiisayna degaysaa. halkaasay buuro ka dhex samaysanaysaa, halkaasay isku wareejinaysaa organiska amaba unugyada muhiimka ah ee jirkaaga, like beerka, keliyaha, wadnaha, sambabada. waa halkaas marka halka cudurradu ka imaanayaan. haddii marka aan kontaroolno waxa aan cunayno oo aan cunno jirkeenna intuu u baahan yahay iyo qaabka ugu baahan yahay u cunno, mana cayilayno, caafimaadna waa ku noolaanaynaa intuu ilaahay cimrigeenu gaarsiiyo. maalin kalean ka hadli doonaa, laakiin waxaa jira iyadana xaddiga cunnada la cunaayo inay muhiim tahay. marka qaababka miisaanka jirkaaga ku kontarooli karta ama ku dhimi kartid waxa waaye, koow, adoo cunno dheelitiran. marka lagu leeyahay cunno dheelitiran waxaa laga biyo fara badan amaba 2 liitar ugu yaraan maalintii. dadka meelaha kuleelaha joogana 2 liitar ka badan ay u baahan yihiin haddaa heli karto. waan ogahay dadku isku ma aha, isku gaajo, isku baahi ma aha, isku fursado iyo nama haystaan, isku xaaladana kuma jiraan. laakiin cayilkii gudaha Soomaaliya kaliya maayo, wadankeena maba ka hadlayne, kuwii wax walba haystay oo wax kasta isku kor saarnaayeen oo qurbaha jooga ayaaba ugu daranba, raggooda iyo dumarkooda. bilsoona lagu jiraa, hadal erayada qaarkood ma isticmaali karo. waxyaabihii yaryaraayo komediga ahaa oo barnaamijyada kusoo dari jiray ma kusoo dari karo. laakiin raggiina calool fara badan ayay leeyihiin, dumarkiina sidoo kale. qurbana waa joogaan, cunto cunaanna ma weyn, lacaga cunto ku gataanna ma weyn, laakiin qaabka cuntadaa ka xun oyna fahamsanayn. wiilkaasaan ku jiri jira aniga, dadkaasaan ka mid ahaa jira. laakiin markii dambe lafahaygaan u yaaba, lafahayga ayaan u yaaba oo u cabsado oo u bedelay. ma garateen? marka cuntada inaan fahamno way tahay, waayo caafimaadkeenana ayadoo ku jiraa, cudurkeenana ayadoo ku jiraa. cunadoo naga xumaata ayaa cudurkeena ku jiraa, caafimaadkeenana wuxuu ku jiraa cunadeenna wanaagsanaad. halkanna weliba sidii wadankii oo kale maaha oo waxyaabo freesha lama helaayo. marka waa GM food, inkastoo markii dambe la ogaado xataa inayna GM food keemada iyo kuwa organiga ah xataa inay wax badan isdhaamin. laakiin inaa cunadii fahamto, cunada markaa fahamto ayaa jirkaagana wax caafimaad leh aa siin kartaa. exampleka u kale waxa waaye oo saddexaad oo waxaan soo sheegay cunada dheelitiran, waxaan soo sheegay biyo kugu filan inaa cabto. biyaha aan wax yar marka sharxo, biyaha waxay muhiim u yihiin, waxa waaye wax badanay muhiim u yihiin. wadnahaaga garaaciisa inuu saxmo, dhiigaaga circulationkiisa, wareega dhiiga oo jirkaaga, was jirka dhan sida baabuurka oo ugu shaqeeyo baansiinka oo kale ya ayaa ugu shaqeeyaa jirkaagana cuntada iyo dhiiga. cunada haddaad cunto, nafaqada markay miiranto dhiigay geli, dhiiggaa markaas mid walbaba ma hesho ku wanaagsaneed gaarsiiyahay. wixii maskaxda fiicnayhayana dhiiggaa gaarsiiyahay, wixii wadnaha ka shaqaysiiyahay si fiicna dhiiggaa gaarsiiyahay, wixii murqahaaga dhisayana dhiiggaa gaarsiiyahay. dhiigga waa howlwadeenkii jirka. waxaa kaleeto oo kugu kordhay inuu jirkaaga qurux badnaado. waa qoyeysaa,
jir ahaanaad qoyeysaa markaa biyo kugu filan cabto. biyaha laga hadlaayo maaha shaah, maaha qaxwo, maaha kafee, maaha isbarmuuto, ma aha maxay ahaytoona faanto, ma aha coca cola, ma aha kiixo ahay la qasaaye oo sokorta badnaay oo soomaalida badanaa isticmaal. waxaas dhan ma aha. juuska baakadaha ku jira xataa maa. biyaha laga hadlaayo waxa waaye biyaha caadiga ah oo cad aa laga hadlaa. 2 liitar ugu yaraan inaa cabto. haddii meel qabooba aa joogto kuleela aa joogtana 2 liitar ka badan adaabadan u cabaayaba lawa haraadee. exampleka yaroo biyaha xaggooda lagu fahmi karo waxaa waaye xoolaha caadiga oo la dhaqdo oo la waraabiyo ama hadday miyi joogaan ama hadday magaalada dhexdeeda ay joogaan carbeedkii iyo wax noocaas oo guryaha ku haysa jirna xamar. xoolahaas oo kaleeto iyo sagaarada duurka joogto isku mid miyaa? weligiin sagaaro cayilan ma aragteen? ma la arka horta sagaaro cayilan ma jirtaa? ma jirto. maxaa yeele waa ugaar biyo ku filan maba haysataba. soo dad iyada dhan waa koksan tahay jirkeeda waxa waaye waa marka biyaha dehydrated aad noqonaya. waxaad noqonaysaa biyo biyaha hadda waa gure qofka waa gura jir ahaan maqaarkaaga waa halaaba. cimri degdeg ah kaa muuqana, cimri aadan jirina kaa muuqana. quruxda kuma jirto make up. ma ku jirto make up. make up ma marsanani hadda af soomana ah caadi waxaa make up marsanaa ma ku jirto make up. quruxda waxay ku jirtaa cunto dheelitiran iyo biyo kugu filan jirkaaga inaad siiso ay ku jirtaa quruxda. oo qurxoonaane make upaad ka maarme maxay ahaytoonay caafimaad badanaa helay markaa biyo fiican cabto. okay, you don't need make up. waxaa u baahan tahay korka inaa iska qurxiso. waxa ka fiican inaa gudaha iska qurxiso. cunto fiican oo nafaqa leh inaa cunto. caafimaadkaaga inaa ka fikirto oo ka taxadarto. adoo yar in sokor kugu dhacdo oo marba meel lagaa gooyo. sokorta hadday xumaato waa ogtihiin lugaha iyo meelo badanaa la gooyahaa jirka inta infection qaado. nabar yar qofka haddoo qaada ma raysanayso. soomaaliya badankeed sokor, dhiikar iyo xaydha gasho dhiiga oo la yidhaha high cholesterol waa 3 cudur oo noogu badan oo xanuun oo noogu badan waay oo dadka laaya. hadda coronaviruska markuu dhacay dadka dhintay oo dhan marka dad xanuuno kala qabay laga saaro oo kansar iyo qabay laga saaro, dadka dhintay oo Soomaalida intooda badan waxay qabeen underlying problemkaas ay qabeen iyo cudurrada u qarsoonaana waxay u badnaayeen sokor iyo dhiikar. weliba jeniskeena amaba sinjiga anaka ka dhalana waa laga yaabaa Soomaalida qaarkood inay aaminsan yihiin dadka cad inay ka tirsan yihiin. dad cad ma ka tirsanid. dadka madow baa ka tirsanta. dadka madow oo qaaradda Afrika ka soo jeeda ama Caribbeanka qaaradaha Caribbeanka jasiiradaha Caribbeanka amaba ka soo jeeda qaaradda Asia way ka halis badan yihiin xanuunada qaarkood inuu ku dhaco siiba dhiikarka iyo sokorta. way kaga badan yihiin dadka kale ee cadaanka caadiga ah marka dhanka caafimaadka la raaco. okay, fahamka cuntada, sirta cuntada waxaa kaloo ka mid a xaddiga cuntada aa ka cunaysid. afka qalaad lagu dhaho portion. maxaa cunee? saxan weyn oo 4 qof cuni karto maa kalagaa cunee? ya mase haafaa cune. haafka Soomaalida u taqaan. annaga waxaan haafka u naqaan xataa qofka wuxuu u baahnaa waa ka badan yahaba. mase baaf weyn iyo bariis iyo awlal 4 qofood ku cunaysiin. baafka dharka lagu dhaqa camal saxme meelaha qaarkood saasaa looga cunaa. xaddiga cuntada aa cunaysid waa important.
adoo cunto dheelitiran cuna haddana waxaa muhiimsi ah xadiga cunada ka cunaysid calooshaana waa waxaa barta waay haddaad hal jawaan oo badara inaad ku shubto bartana halka jawaanay rabtaa haddaad barto sacabkaas mugiis inaad ku shubtana laba beriyaa gaajoohe maalinka saddexaad caloosha sacabka la qabsahe bas caloosha sida dhar waxa waaye sida lastiga maaragta lastiga maaragta oo dharka gudaha laga geliyo aga camal ay u kala jiidantaa wax badan haddaa ku shubtid waa kala jiidmayo wixii badanaa ka buuxsamaa wax yar haddaa ku shubto isku imaahe waxaas yaray ay la qabsaneen iyo maskaxdaada ay calooshana waa isla shaqeyhayaan dan maskaxda marka dambe caloosha waxay dhahee baro hadda wixii ka dambeeya halahan ka badan ma lagu siinaayo marka way fiican tahay inaa xadiga cuntada iska yaraysta xataa hadduu hilib yahay xataa hadduu digaag yahay ama doora saa u taqaan xataa hadduu kalluun yahay ama malaay saa u taqaan wax kasta oo cunaysid inaa xadigooda ay wax qiyaas adiga u baahan tahay waxay qiyaasaan boqolkiiba 1600 kaloori oo kaloriska cuntada lagu cabiro in ragga u baahan yihiin because ragga iyo dumarka isku simo u samaysan jirkooda barnaamijyada marka maadaama badana ay dumarka ku jeedaan haddaad gabarta waxaa u baahan tahay 1200 ka badan oo kaloori inaa cunto maalintii lama rabo anoo kale marka maxay sameeyey kow marka aad culayska iskaga dhimay waxaan cunay 800 oo kaloori 1200 oo kaloori soo laygama rabin inaan cuno ma cunin waxaan cuni jiray 800 oo kaloori ilaa hadda 800 kaloori aan cunaa sababtu waxay tahay marka kaloriska jirkaaga uu u baahan yahay ka yar aa cunto jirki wixii uu isticmaalayay waa baxaa xaydi iyo cadiinta jirka ku kaydsaneed kaydki baqaarka uu soo furanaa uu isticmaalaa jirkaaga markaas waa caatoobi adiga mar kale ku celinaa inaan si kale u fasira isku dayaa 1200 kaloris ka badan lama rabo qofka dumarka ah inay cunto taasoo waa meel 1200 oo kaloris waa inay iskugu jiraan carbohydrate vitamins protein ya iyo minerals waxa fiber la dhahayo amaba maxaa la dhahaa waxa oo sida buunshada laho oo jirka qashin saarka ka qayb qaata okay proteinku waa daily taas oo farileyda waa daily vitaminkuna waa daily waa maalin walbaa la rabaa maalin kasta subax kasta haddaad jiifato soo kacdo waxaa la rabaa inaa cunto maxaa soo haray carbonhydrate-ka asaga waa baxa haddaa ka badan cunto waa maalinta ku dhammaatay waana energyana laga helaa oo waa muhiim laakiin waa inaad qiyaas cunto qiyaasta jirkaaga u baahan yahay waa inaana dhaf haas haddaad badsato waa kuu dhammaatay waa bararaysaa waana weynaanaysaa borotiinka haddaa badsato dhib ma keeno waa cuntay maahano wixii soo hara isla wixii xataa u baahneed ka badan oo borotiin haddaa maalintii cunto wixii ka soo hara isla maalintaas ayuu carbohydrate ahaan ama energy ahaan ama tamar ahaan hadba saa u taqaan oo jirkaaga uu isticmaalaya waa gubaya khalaas haddana baristo waxaa lagaa rabaa haddana inaa borotiin vitamin haddana saas u cunto laakiin carbohydrate-ka waxaa laga helo baastada bariiska burka roodhiga ya sokorta naftirkeeda waxaas oo dhan haddaad cunto wixii jirka u baahnaa maahe halaha kale jirkay dhex fadhiisahayaan baqaaroy galayaan waa waxaas marka waxaad ku cayilayso ani marka maxaa sameeyaa min ahaan haddaa sirtaan sameeye idinla wadaago waxaa sameey iskama waalin aniga inta baxay oo jiim tagana biro waaweyn ma xambaarin boos ani biro inaan xambaara lagamaba rababa waxaa laga rabaa qof dumar ahaan ahay dumarka waxaa laga rabaa 80% inay diet sameeyaan oo ay u meeldayaan waxay cunayaan 20% waxaa laga rabaa inay exercise sameeyaan
boqolkiiba 80 markalaan ku celinaa in cunadaada aa ka fakartaa lagaa rabaa qof dumar haddaa tahay boqolkiiba 20na exercise waa usoo noqaynaa marka waa fasiri doonaa cuntadii maadaama boqolkiiba 80 lagaa rabo taasaa muhiimayna aad iyo aad iskula fahamno boqolkiiba 80ka cuntada markaa cunayno haddaan nahay dumar Soomaaliyeed han especially 30 sano iyo wixii ka weyn 30 sano wixii ka yar weli ilmo waayb waa kora maahno qofka 30 sano hadduu ka weynaado oo rag iyo dumar midkow yaha wax kasta ma cuni karo wax kasta qaala dalaq xalwa kala dalaq maxay toro baasta isku gambi haddana hilib cadiin la jiid ma loo baahna 30 sano haddaa jirto wixii ka dambeeya waa cunadaada inaa u fiirsato marka maxaa sameeyay 120 kaloori meeshii laga rabay waxaan cunay 1200 kaloori sorry meeshii laga rabay 1200 kg ama kl inaan cuno meeshii laga rabay waxaan cunaa 800 cunaa si 400 kaloori oo haray oo jirkaygu dib ugu noqdo xaydha jirkaygu ku jirto oo jirkaygu u isticmaalo hadda ma fahamtay marka hadaa aniga aamino kala aadan weynan ku dhameyn oo ina culeyska iska dhinto tartiib culeyska iskaga dhinto aan faa'iido ku jirta hal maraan booda 100 kiilo rufsiha ma jirto taas faa'iido ma cuduraba ka qaadaysaaba caafimaad ma ka qaadays waxa samay kartaa 1200 kaloris markii laga rabo gabaryaha waxa cuni kartaa 1000 kaloori 200 kaloris aa jari kartaa ilaa aad ka timaado culeyska meesha aad rabto meesha aad rabto ilaa aad ka timaado meesha aad rabto markaa timaado kaloriski laga rabo cunay oo sax ah markaas meeshaadaad joogay isma bedelaysid mana cayilaysid mana caatoobis barti laga rabaa joogaysaa intii badneed marka maanta ugu talagala barnaamijka waa koobar garayna waa inaad cuntada aad cunaysid aad ugu fiirsatid waa inaad biyo badan cabtid ugu yaraan 2 litir 2 litir maxaa waay galaaska caadiga ah hadda waa soo marnahay galaas agteeda ma yaalo galaaska caadiga ah oo biyaha lagu cabo oo saas u dheer oo Soomaaliya xataa yaalo gaduudkaba ha ahaado ama galaaska macdanka ha ahaado 8 waaye galaaskaas 4 litir waaye afarta kalena 1 litir waa 8 galaas oo biyo adaa yaqaansaa u kala googoosayso sirta labaad waxa waaye inaad sokorta goyso iyo cusbada iyo dufanka saliida lagu karinayo cunto kasta waxaa ku jirto sokor iyo cusbo dabiici ah ku dhex jirto ka sokorta less inaa ka dhigto dadka anoo kaleeto hadda oo gabdho badan oo kale oo hadda inta saaxiibo ku nahay waqti badan ay bilaabeen farxiyo buraaya kamida faadumo cilmi oo isku magaalo deganaha kamida dad badan Leila kamida dad gabdho aad u fara badan isku dadaalaa jiro intaasoo culays iska rida dadkaas carabkooda waa la qabsada anaga carabkeen waa la qabsada carabkayga waa la qabsada inaan sokor la'aan noolaado waa isbare 2013 soo bilaabay 2013 soo bilaabay hadda maxaa lagu jira 2021 soo intaas oo sano sokor waa iska ilaalshana cuna ma mar dhif oo xalfiladaha tago laga yaabaa buskud yar inaan saas dhaho ama maxay too keeg yar cuno bas waxa waaye faakihaysi marmar waa lagu ogolayaa dad inta kale isku dadaalayso laakiin sokor joogtaa iyo 4 qaado 5 qaado 7 qaado oo halka koob oo shaah lagu daraayo 7 koobna la cabaayo 7 ku dhufo waa meeqa 4 or 5 spoonful waxa la dhahay qaadada yar oo spoonfulka ka badan qofka inuu cuno lama rabo qof oo sokora maalintii haddii oo qofku sokorow qabo oo macaan oo qabana xaddigii oo sokorta waxa waaye daily 3 qaado oo qaadada yaryar 3daas qaado qaadada yaryar 2 qaado oo kamid ah waxayba naturally sinna caadi oo dabiici ah waxay ugu jirtaa cuntada cunayso hal qaadaas oo hirta meesha ka waran marka adoo sokor qaba ama waliba xataa taqtarka kugu cadayn inaa qabto
haddaad halkii koob oo shaahaba 6 qaado 5 qaado iyo 4 qaado sokora kii iska dhiga qatar cadiima kii iska dhiga 3 qaado ku daraa qofka Soomaaliga shaah 3 qaado haddana ku dar haddana halka la soo qaad haddana 3 qaado kale haddana shaah kale haddana hadhow barqadi 3 qaado haddana galabta haddana 3 qaado bal waa meeqa 3 qaado xisaab meeqa qaado oo sokor hadda cuntada caadiga ahayd ma baastadii bariiskii oo ku dhiman yahay oo sokorta caadiga ahayd ku jirto meeqa qaado sokora isku daldash faa'iido kuuguma jirto xanuunada koow wax laga qaadana waa ayada waa sokorta badan dufanka badan iyo cusbada badan saddexdaas haddaad edab iskaga yeesho cunadaadana aad dheeli tirto waa guarantee waay anaa idin dhahaayo guarantee waay aniga ma iga hoosaysiina maanaa iga liidatiin aniga inta iga dhacdaa iga ka dhacaysa insha allah marka ciidda la gaaro ciidda laga baxo aan guntiina idin soo xiro doonaa waa arki doontii sidaa ah waxaan soo maray iyadoo guntiinadu ay kala gaareen hadda waa guntiinada caadigaa loogu talagaleeday oo dumarka Soomaalida inay xirtaan maba iga soo wareegayn haddana caadiga u xiranaa dhag qof kasta wuxuu isku dadaalo oo noqonaa doonaa waa hela marka sokorta tartiib waxaa arkay qof cabitaan oo qasaa cabitaankii oo qasnaayo sokorta ku jirto kuwa weliba meelahan laga keeno oo laga keeno imaaraadka imaa suubiya horta masintiya lagu suubiya ma qaane oo gasacyada ku jiro budada sokoraha dar laga sii buuxaa usugaaba sokor socoto cabitaankaas caadi haddaa u qasto sokoraha hoos fadhiisa hayso hoos sokoraa degayso usugaaba sokor socda haya usugada sokor kale kusii dar gabdhaha how baxarka bacd waadan ka baxa aniga waxaa idin sheegaa it's good inaad iswaxaysin inaad maaragta aad miisaanka haddaa iska dhintaan not only caafimaad qurux jaweyna waa naqaysin waa qurxoonaanaysin markaa qurxoonaatana self esteemkaaga isku kalsoonaantaada koray u kacee marka isku kalsoonaantaada ee kor u kacdana less stress noqoyo stress dhan dariishada ka baxa marka stress dhan dariishada ka baxana oo depression iyo oo anxiety iyo all the mental health oo stress ina abtiyaashiis iyo ina adeeradiis iyo kan qalaas waa dhamaatay meel jirkaaga soo galayaan malaha waa important marka ina miisaanka iska dhintaan ugu dambeyntii gabdho badan ayaa isoo weydiiyey oo dhahay waxaan rabaa inaan miisaan is saaro waxaan rabaa inaan idin sheego inaan miisaanka kordhisato horta in la iscayiliyo in la iscaatay in la iscayiliyaa dhib yar badana isku wadiida waa cayile daadsid khalaas in la iscaateeyo laakiin badarka isku wadayda inaa iska goyso wala shidda waay wax sahlan maaha marka inaa iscayiliso haddaa rabto gabdhihii soo weydiiyo waxaan ku cuninba cun waa iska cayile haddana isteesa saas oy tahay ma idinku waaninayo idinka qudhiina inaad subag badan iyo sokor badan iyo cusbo badan cuntaan waxaad ogaataan qof buuran kaliya wadna xanuun kuma rido kumana dhacdo sokor qof buuran oo kaliya high cholesterol ama dhiiga oo taxayda dhiiga gasho kaliya ma qaado haddaa rabtid marka inaa iscayilisid it's so easy just waxaan ku cuninba ka hor yimaadba yuqsi waa iska cayile waxaan ku cuninba cun adaaba cayili doone haddana Soomaali ma tiido hilibaanba laga agr fogeeyaynba iska cun hilibkaaga isku daldal waa iska cayile laakiin haddana mar kastaba ma
kuu fiicna inaa cayil raadsato ya maxaa la yiri reer cabarka waxay ku maamaahan waxay dhahaan gaabow iyo dheerow baa ilaahay uuma maahana buurow iyo xayeesiyow ma uumin ya gaabow iyo dheerow ilaahay uumay ay dhahaan reer xamarka aan reer xamar le ahay ma ogtahay laakiin buurow iyo xayeesiyow ilaahay ma uumin ay dhahaan badanaa isku daldala baa barare buurow baa naqahe waa iska dhime ama gaajaaba iska kaayso waxaad cuntaba mees xayeesiyo baa naqahe laakiin dheerow iyo gaabow iyada waxawaa ilaahay uuma waxay ka wadaan allah ugu talagala saas laakiin inta kaleeto dadkaa iska dhiga kare ka wadan ma garata xataa ramadaanka isbata marka aad samaynaysid marka aad dhaytkaaga uu fiican yahay wallahi ramadaanka is good sanadadii hore aniga iyo sanadada aan bilaabay inaan weedka iska dhimo sanadada aan bilaabay inaan weedka iska dhimo oo ramadaanka ii sahlan yahay ma dareemo insha allah next waxaan ka hadli doonaa cunada oo kaa dhigaysa fuul oo inaa markasta dhargan tahay kaa dhigaysa cuntada isma leh midna waxa waaye kaaga baxe midna jirkaaga wax badan ku jire marka tan jirkaaga wax badan ku jirayso ayaa ka fiican tan horeba jirkaaga ka gubayo oo hore ka baxaysa bas markay ka baxdo waa baxay hadana cunto kala cunay hadana waa baxay dhaqso kaaga baxa hadana cunto kala cunay laakiin cuntada jirkaaga ku waarayso oo wax badan ku jirayso waayo cuntada ka saacidaysa inaa weight loss ka samayso ka waxa aad leeyahay ramadaan kariim xilliga afurka karsalahay waaye afurka diyaarsalahay iskana jira idankaya ilmaha isku afur ma tihiin ogaada ilmaha waa koraayaan adinka ma koraysiin idinka dad waaweynaa noqotaan ilmaha waa koraayaan laakiin dadka waaweyn ma koraayaan dadka waaweyn waxaa laga rabaa halooda le inay ahaadaan dhirirkuuma dhinna ya oo kori mayso laftaada kala bixi mayso mar 30 sano hadaa gaartana waxaad jadiinkaas marayso inaad ka fiirsato intaasaa ballanteena insha allah nextga barnaamijkaas kale aan kasoo noqonaa inta marka xilliga ilaahay soo arooriyo inta kaleeto qoraaladii aan wadaynaa tani kulan dambe waxaan idin leeyahay mac salaama nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu